waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago qisadii anigii qamar wuxuu ahaa qofka dal dheer oo loo socanayo masaafo dhan 400 kilomitir iga soo safray habeen oo dhan aan seexan waa ogahay dad baa dhihi doona shalay baaba isguursateen goorma aayadeeduna waa kuu dhiman tahay dhegtaada intaa furto waxaan ku leeyahay Ramadaan Kariim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وروائد السلام يا ملك سو دنيا كجوكتان ولكن عبد الله مع الحسين قروح ذا قوس كتون ويجلس سعتان ورجينا يا نجو عفماد يا نبض قبنا إن ربي جنود بسوق يسوع علي رمضان كريم رمضان جميل وإذن لا يحي إلهي أنت دبن دبك هكذا القاضو أنت أنا عفماد كقبتنا إلهي هؤزياديو أنت أولاد أنت ربي حصيو أنت هي ستنا إلهي كوا خير قبها أوجديو بإذن الله الكريم أنت آمين تري waan rajeynayaa channelkana adiga ayaa iska leh ka ilaabin subscribe na saarto muuqaalkana like gareyso wixii talay tusaalana qaybta commentiga aad nagula soo wadaagto qalbiga ayaa ka soo salaameynaa Ramadaan Kariimna waan kuleenahay aad iyo aad inta markaan ka soo gudubno maalmahan waxa baraha bulshada aad u qabsaday boqorkan iyo boqoradan waa boqor iyo boqorad waa faras iyo geenyo waa laba iscalmaday oo dunidan iska doortay ajaib sheekhow يعني كبد بدن باشا ودمشيده إذا إن أمانه وكو قصبناها وحا وملنا أنا هاي دت كان سوشيال ميديا كوجرو منك وجود دمشياش بدن أنا أها أملنا يا يقو غاتو إن أروسكي دعيها بين دويتو وقمر سوغاني ولاشين ريان معناها وحوين سكو جورسدين كدب مقالو استبجوجا أي صوت دوبين ومقالو محين dad ba isweydiinay wax dhahayaan alla talo muuqaalada maxayn ana ku hayo gambarkaaga dhigo dadkan ilaa waa dad isla soo jabay 2021 ya dad waxa waaye 2 sano oo hadda ka hor isii yaqaanay ahaayeenba ajaib sheekhow marka waxaan rabaa inaan idin la wadaago qamar suugaani iyo rayaan bajaaj aayadeeduna waa idin dhiman tahay dhigtaada kor wahay waxaan isku baranay jasiiradda Dheeman Luula ها أبينا 4 به سما بس 5 به ما حسست لك نحسين لهذين قمرنا أنا وحن برتي أنا مركان مقدشة تجي last time 2021 كي أكتوبر بان صوبرتي إلى أمر تغير أنا هاي حلقة نحسبانها مدك دي حلقة أنا كلا تكني أنا أدنى شيء سنة تلفون باك شيء سنة سي ولا معه كدب حرير سكبلاو قصبنا ما هاد إنه دتك 10 سنة أفرت إن قف كلها يا دال أركتو إنه وقت كله قاطن كبرتان ربا that's not future وقف إنه يعني المستقبل كاي إنه ليش هذا بقى أصول جد حرب ما تينا نذلو ذاقو إن قصدي يعني كي قمر روحها قفك دال دير والله سعني مسافة دن 400 كيلومتر ديك سو صفر هبين ودنا نسحن قمر مركان حسست شيء كديسة وحنو دريما سيث أكسجين كيو كلا قمر وما إلا أنا لمركان حسست وان سك قصلا مركان دايا كا قصلي نقد رياني نقد أنا ذري يا دمش نقد أف شكذا أنت نقد أفتو the reality one أنا أوصل لابنه قمر ويقبل ده قمر أنا شعل وشعيل كد إيسي لما تباريسه واحد يقول لك صاروا شعلها كم فوقه لا في حتى أنا قمر أكو بس شعلانة شعيل كانوا سيادين سوى البرية نقصوا بالبلا معن ناكتي يقول لنا حجرتك أنا لحقت يو كان يعني لا كلام أنا كان لحقت أكسب إيبس كلام شنو بالكون بيقول دبسينا إيبي مدي كلام قف دون أنول ولا داعي حقك أركان بسم الله الرحمن الرحيم قفل بو أنا أسق واسخبنا لكن قفل بسيف بقوله حدنا ضد وحشة كريم لو بخوص قلم قليس لعشرته ما يبدأ واحد خبر ما بزاكي والله بالله ضدك معها يعني saa idinku ka aaminsantihiin markaan arko waa ila la yaaba hay waan joogaa shaqada iska wado ana fadhiyahay amaanin inta waxa waaye qamar suugaani iyo dumashaday rayaan
soomaaliba hore waxay ugu mamahday haddii aad rabto in lagu caayo ama lagu aflagaadeeyo ama lagu dhibaateeyo guurso haddaa ammaan rabtana dhimo saanuu ahaan jiray muqdisho hees u soo qaaday marbaa jabuuti lagu weeraray rayaan bajaaj ba uga soo safray magaalada hargeysa waa markaa dhimataya laakiin markaa nooshahay oo aad guursato wax walba waa la kulmaysaa dadkii waxay socdaanba waxaa la yidhi rayaan bajaajay mawaad ilowday wiilkii caruurta u dhashay oo duruuf walba kugu soo garab istaagay muuqaalkaas wax yar oo kamid waa idin maqashiinaya wax yar oo kamid ayaa idin maqashiinaya aayadeydana waa ku xujinaa marka qof ay garab istaago ay soo kabo lacagta iga bixiyo oo yani guriga xitaa wax iga dhinaa everything ay sameeyay Cabaas oo ahaa soo ani markaas qalbiga bish haddana qof oo yani waalidkii ama habartay ama hooyaday moolaashay ma garab taagneen qofka kale ay garab taagnaa mishaar isiinaaye xilliga cuntada u baahanaa cuntada isiinaaye xilliga musqul rabo intuu i qaado musqusha i gelinaaye dhahay hay ma dhamaysto baxadane والله thank you waaya waxaa u soo laabanaya marka waxaa u soo laabanayaa aniga taydan u soo laabanaya horta sidan waxa wax u qaribayo oo hadba muuqaal laga soo gudbay 2019 iyo 18 iyo 20 iyo laga soo gudbay waa iska dhalinyaro ma aha dad akhayaar oo dad waaweyn waxa kama hadlaan waxay dhahan faatama faat ya leave the past way wixii tagay waa laga tagaa marka waxa saas wuxuu galay horta waa wiilal iyo gabdho dhalinyaro ah ha u qabanina waa iska dhalinyaro ha u qabanina ka gudba danta aaladiin baa ka weyn waxaa la yiri qamar suugaani marka koobaad qamar suugaani tiisan ka hormaraya waxaa la yiri rayaan bajaajay waa taa muuqaalkii hore channelka Naruura idin kugula wadaagay dadku ay dhahayeen sidee qamar suugaani 20,000 oo gabadha ku mehersanay intuu ka keenaa waa tii la dhahay moogto way ka soo hadashay isla arintii un ba hadana luuq loogu soo galo waxa la yiri walaal macaani qamar suugaani waxba ma haystee lacagtii kareemada iyo wixii ay ku gudgada jirta ama ku dhax والله عنق Soomaali عنق dhibkeeda leedahay ya lacagtii yareed ee kareemada ay ka iibin jirtay walaalay amu ninkan ka dhacaa asagan iska mawaalin wuxuu yiri dadka waxa ka hadlaa dadkii is dhici jiray wallahi billah waa jawaabtii oo lugale waa jawaabtii oo sax waa dadka waxa ka hadlaa yiri waa dadka eeyga is dhaca dadka waxa nooca ka hadla waa dadka is dhaca buu yiri runtiisu weeyaan marka waa un hadaad rabto in lagu caayo guursadii way moogta taa horta halkaas aan uga gudbeenaa in halka la gaarsiiyay qamar suugaani halka in la gaarsiiyay ma ahan wiilku waa wiilkiini waa walaalkiin waxa u soo laabanaya marka Cabaas iyo Rayaan waxay ahaayeen lamaane Soomaaliyeed qurux badan ma sha Allah ilaahay awlaad kala siiyay ilaahay in buu u qoray inay ku wada noolaadaan carafkana waa soo dhamaaday haddii uu soo dhamaadayna Rayaanna waxa u rajeynay calaf wanaagsan inuu ilaahay siiyo Cabaasna waxa u rajeynay calaf wanaagsan inuu ilaahay siiyo laakiin duruufta la isla soo maro ma aha hadda adigoo qawan ba dhalatay qof asagoo dhar wata lacagna haysta hantiila oo dhashmiya jiro waa maya adoo qaawan baa caloosha hooyada ka soo baxday adoo qaawana godka 2 mitir baa lagu geenayaa taa horta inaan ku xisaabtana waa muhiim taa horta inaan ogaanaa muhiim ah taas horta waa inaan ogaanaa qofku marka duruufo waa soo maraa duruuftuna caay ma aha ceebna ma aha in macnaha duruufo la isku caayo wax ceeba ma aha qofkan marxalad buu soo maray qof kastana marxaladda waa soo maraa qofka maanta taajirka ah ee hantida leh ee guryaha leh ee waxa waaye maanta ay u kala kacsan tahay ee istaafiyada wata ee baabuur kasta oo sanad walba soo baxa isagoo lambar 1 ka soo gata duruuf buu soo maray aanan ogeyn hadduu nooga sheekeeyana laga yaabaa maanta xaaladda aad ku sugantahay iyo xaaladii markii hore uu ku sugnaa in adigu maanta aad ka wanaagsantahay baa laga yaabaa soo marka Rayaan bajaajay duruuftana soo martay saana soo martay intay soo martay waxa ka wanaagsan maanta maxaa tahay baa ka wanaagsan waa marka xaqiiqda isu sheegna mugto waa gabar Soomaaliyeed caay ma mudna waligeed baa gabar inta la soo kala tagaan nin kale ay guursan jirtay ayada ugu horreenin ayada ugu dambeyn doonto ayada buuro la soo fuulay maxaa looga dhigayaa sax maaha qamar
iyo waxaan leenahay rayaan bajaaj isku waara owlaad khayr qabtar baa idinkala siiyo reer nairobina waxaan leeyahay gabadhan intaasoo muddo idinla joogtay adigaa ka faa'iidaysan waayey boqor buu ilaahay oga keenay magaalada hargeysa diyaarad ku yimid adinkoo daawanayana hortiina la maraya faatixada ka dabageeye faatixada ka dabageeye marka aan saas leeyahay kama wado waxa dacaayadda gabadha daba wado waa reer nairobi kama wadi ifahmaya waxaan ka hadlayaa dhallinyarada beerka u yaal oo joodarayaasha iyo sariiruhu ay dhibsadeen oo ay taagantahay sariir maanta hadday hadli lahayd war iga kac orod iga tag ma garateen soo marka reerka ha loo duceeyo faatixadaan ugu darno hortooda aan dhigno gadaashoodan aan dhigno reerla waxaan leenahay dee dumaashay dhaga hadalka badan naga daa baan leenahay bir ramadaan baan ku jirnaa waa bil barakeysan ilaahay subxaana watacaala kuwii ka faa'iidaysta ha inaga dhigo masaakiinta dadka walaalaha ah ee maanta u baahan in la garab istaagana aan garab istaagno biidnillahi alkariim waayo waxaa jira maanta haddii adiga caruurtaadu ay kula ciidayaan caruur waxaa jirto aabbayaashood aanan maanta haysan oon la ciidin hooyooyinkood aanan haysan oon la ciidin soo marka aan kuwaana ka warqabno oo ciidaha aan uga qayb qaadano ilmaha yaryarka ah ee waxba aanan haysan biidnillahi alkariim aad baa umahadsantii walaalayaal muuqaalka ayaan doonayay inaan idinla wadaago aan idiin soo gudbiyo inta aan muuqaalada xiga isugu soo laaban doono waxaa idinkaga tegayaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bishaaran ku leeyahay waxaa idin keenay alaab dabiici ah oo aan ka samaysan dacar ka samaysan oo aanan ku jirin wax kiimika ah ama waxa ku cadeynayo kuma lihi wuu ku cadeynaya kuma lihi wuxuu ka dhigayaa nuur 7 days oo ku cayile kuma dhahay alaab dabiici ah oo ka samaysan dhir oo ka samaysan dacar oo waxay ahayd kaaliska idin keenay Kenya insha Allah lambarkan shaashada idin soo saaray haddii wajigaaga uu haara leeyahay haddii wajigaaga uu muxuu haayay ka halaabay ama daawo ka dishay haddii wajigaaga mar walba yaani dhibaatooyinka ay ku soo noqnoqdaan xasaasiyada ay kugu soo noqnoqoto lambarka shaashada ka muuqdo wac una sheeg lambarka inaad ka soo qorto walaasha Maryan insha Allah daawada u baahan tahayna u sheeg Allah daawada kugu haboon waa lagu sheegi doonaa haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qadaro ku soo dhawaada muqdishona dukaan ayaa idin kaga furnay ma sha Allah tabaarakallah waliba waxa idin fariisina dhakhtar free ah ku arkay ababo yaa laga hormarin dhakhtarka joogo muqdisho kulankiisa waa free hal shilina kaama qaadanayo xanuunkaaga u sheeganaysaa meel walba laga hayo sokor dhiig kolestarool kor xanuun madax xanuun maxay hormoon balance inuu mar walba hormoonkaaga qaldan yahay oo muxuu ahaay dhibaato fara badan ay kugu soo noqnoqoto dhakhtarkaagaas wax kasto oo yaani dareemaysid baabasiir ha ahaato waad u sheeganaysaa freedom ma fahanti shilin kaama qaadanayo daawada kugu haboon biso ku siina marka meeshaas waxa ka gadan doontaa daawadi oo waliba kugu habooneed oo waliba dhir dabiici ah oo dacar ka samaysan ay ka samaysan tahay dukaan weynaanta ka bad oo waxaan ku raad alaabta doontid ka helaysid qorxinta sidoo kale dhakhtarka waa la kulmaysaa wajigaaga u arkaa daawo fiican ku qoran lambarka shaashada ka muuqdo ha moogaanin insha Allah intuu jooga muqdisho asaga ku sheeg ayada ku sheegi doonta gabadhaas lambarkeeda meesha idin soo saare haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qadaro waca una sheega in aad ka soo qorto walaasha Maryan oo u baahan tahay dhakhtarka inaad la kulantid taas waa koow haddii aad u baahan tahay waxyaabo kale oo extra ahna lambarkaas asagna shaashada idin kaga muuqdo oo Mareykan laga leeyahay manager Saacidi Xirsi waa insha Allah 3 lambar meesha idin saaran ku soo dhawaada haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qadaro lagama sheekeyn karo wajigaaga hadduu haleysan yahay oo Kenya aad joogtid waan ku sheegay gabaray fadhiga ka kacan ku dhahay madmadow haaro maxay ahaydey wajiga in daawo ka dilootay haddii aad u baahan tahay si dabiici ah isku qurux badnayso